Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan. Waxaan idiin soo gudbinaynaa ciidanka difaaca Puntland oo gacanta ku dhigay firxadka qayb ka mid ah Daacish oo la rumaysan yahay in ay ku dhuumaaleysanayeen qaybo ka tirsan gobolka Bari. Faahfaahinta ayaan idiin soo gudbinaynaa howlgalka saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamadu sameeyeen. Maxaa ka jira in ay burburiyeen saldhigyo muhiim u ahaa kooxda iyo in markaasi gacanta ay ku dhigeen horjoogayaal muhiim u ahaa kooxdan. Faahfaahinta ayaan idinkula wadaagi doonaa daawadayaal inta warbixinta aynu ku guda jirno. Sidoo kale waxaan ka marnaan doonin wararkii ugu dambeeyay magaalada Boorama, dhimashada iyo dhaawaca oo sii kordhaya, iyo militariga Somaliland oo xasuuqa halkaasi ay ka geysanayaan uu sii kordhayo ayaan idiin soo gudbin doonaa. Balse marka koowaad, haddii ay tahay markii ugu horreysay ee na soo booqatay, soo dhawow, muuqaalka like garee, siina share garee si dad badan xogteena ay u gaarto. Waa hagaag. Ciidanka geesiyaasha ee difaaca Puntland waxyaabaha ilaa hadda lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah sida nafhurnimada leh, adayga leh, ee kartida leh ee ay markaasi ugu dhaceen dhammaan godadkii ay ku sugnaayeen kooxda firxadka ah ee Daacish. Waxaa xusid mudan in goobaha iyo markaasi meelaha ilaa hadda ay gaareen inay yihiin meelo ay adag tahay in markaasi lagu dagaalamo ama la dul socdo. Waa dhul buuro ah oo dhagaxyo ah oo ay adag tahay in ciidanka ay markaasi ka gudbaan iyagoo hubka culus ee gacmaha lagu qaadi karin u adeegsanayay in ay ku qaataan gaari dameerka ama sidoo kale awrta. Ciidanka difaaca Puntland oo saacadihii ugu dambeeyay howlgallo culus oo laxaad ka waday deegaanada buraha Calmiskaad ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay gacanta ku dhigeen saacadihii lasoo dhaafay tiradii maxaabiis ee ugu badnayd. Waxaana markaasi lagu soo waramayaa in xubnaha hadda la qabtay ay qayb ka yihiin horjoogayaal sarsare oo kooxdan muhiim u ahaa, inkastoo aan magacyadooda la magacaabin. Tuulo Dharaar oo ka tirsan deegaanka Timirshe ayaa lagu soo waramayaa in sidoo kale ciidamada difaaca Puntland ay kasoo qabteen nin markaasi horey loo baadigoobayay. Hay-adda nabad sugidda Puntland ayaa markan u muuqato in ay galka seefta kala baxday oo ay si toos ah u beegsanayso xubnaha markaasi lagu raadjoogo ee hay-adaha sirdoonka ay markaasi farta ku fiiqeen, lana tuhunsan yahay in ay xiriir la leeyihiin kooxda firxadka ah ee halkaas ku dhuumaaleysanaysay muddooyinkii iyo sanadihii markaasi ugu dambeeyay. Ciidanka geesiyaasha ee difaaca Puntland waxaa u suurta gashay in ay gacanta ku dhigaan badi saldhigyadii ay kooxdan ku lahaayeen buraha Calmiskaad, waana midda sahashay in si degdeg ah looga takhaluso. Howlgallada waxaa barbar socday duqeymaha ay markaasi geysanayeen diyaaradaha dagaalka ee markaasi Africom iyo sidoo kale Imaaraadka, waxaana markaasi ay ka saacideen ciidanka ee dhulka ku lugeynaya in la burburiyo saldhigyadii ugu muhiimsanaa ee kooxdan ee godadka hoostiisa ah. Intii ka badbaadayna waxaa leeftay rasaasta ciidanka difaaca Puntland oo har iyo habeenba markaasi ku dul socday dhulka buuraha. Maxaabiista ilaa ay hadda gacanta u soo galay ciidanka difaaca Puntland waxay isugu jiraan ajaanib iyo Soomaali oo wadamo kala duwan u dhashay, kuwaas oo la horgeyn doono maxkamadda, balse haatan weli ay socoto baadigoobka inta kale ee ku firxatay dhulka buuraha ah ee Calmiskaad oo raadintooda ay socoto. Saan xogta ku heyno, ciidanka difaaca Puntland waxa ay wadaan howlgalladii ugu cuslaa tan iyo markii howlgalkan uu bilowday oo haatan muddo sanada u buuxsantay. Puntland inkastoo weli howlgalka aysan ka farxalan, haddana weli waxaa muuqato in ay guulo waaweyn ka gaareen ciidanka difaaca Puntland, maadaama kooxda dagaalka lagula jiro ay tahay koox argagixiso heer caalami ah oo u baahan in markaasi si taxaddar leh looga nadiifiyo guud ahaan dhulka ay markaasi kaga sugnaayeen buraha Calmiskaad. Inkastoo kooxdan ay isku dayeen in howlgalka ciidanka difaaca Puntland ay hakiyaan oo tallaabooyin dhowra ay qaadeen, haddana uma suurtagelin oo ciidanka way u babacdhigeen wax kasta oo kasoo wajaha. Saraakiil fara badan ayaa ku dhintay iyo askarba, taasna ma joojin in howlgalka uu hakado maalinna. Taa beddelkeeda, maalin walba ciidanka difaaca Puntland waxa ay gaarayeen guulo hor leh oo isdaba joog ah
waxaana markaasi lagu soo warramayaa in ciidanka difaaca Puntland hadda ay markaasi gabagabadii ay joogaan oo saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan ay ka takhalusi doonaan kooxda firxadka ah ee Daacish. Waayahay, markan haddii ayna aadno magaalada Boorama, waxaa ka socdo xasuuqii ugu weynaa oo ciidanka Somaliland ay halkaasi ka geysanayaan. Saacadihii lasoo dhaafay tirada dhimashada way sii korortay iyo dhaawacaba, oo isbitaalada waxaa buux dhaafiyey meydadka iyo dhaawacyada ee ciidanka ee markaasi militariga ee Somaliland ay rasaasta ay markaasi la beegsadeen. Rabshadahan iyo iska horimaadyadaan u dhexeeya shacabka aan hubaysnayn iyo militariga Somaliland ayaa bilaabmay kadib markii xukuumadda Somaliland ay ku dhawaaqday in xeerka markaasi ciise waa buugga markaasi xeerka ciise in lagu soo bandhigo magaalada Saylac ee gobolka Salal, taas oo bulshada ka soo jeeda beesha Gudabiirsi ee degta gobolada Awdal iyo Salal ay si adag uga biyo diideen, isla markaana in muddo aba uu taagnaa khilaafka ku aadan soo bandhigidda buuggaas. Balse xukuumadda Somaliland ayaa markan u muuqato in ay aqbashay bandhigga buuggaas, iyadoo shacabka gobolada Awdal iyo Salal ee ka soo jeedo beesha Samaroon ay arrintaasi ka dhiidhiyeen, isla markaana ay dibadbaxyo ay sameeyeen. Isla marka go'aanka xukuumadda uu soo baxay, waxaa isqabsaday dibadbaxyo dhammaan deegaan kasta iyo magaalo walba oo beeshu ay degto, taas oo ciidanka Somaliland ay ula macaamileen in ay xabad markaasi kala hortagaan. Waxaana haatan soconaya dhiigbax zaa'id ah oo ka jira magaalada Boorama iyo deegaanada kale ee dibadbaxa uu ka socdo, haba ugu darnaata Boorama. Wararkii ugu dambeeyay aynu helayna waxay sheegayaan in tirada dhimashada ay 5 qof kor usii dhaaftay, dhaawacan 20 haatan uu kusii dhow yahay. Taasina ay tahay arrin markaasi degdeg u baahan in wax looga qabto, maadaama xaaladdu ay faraha ka baxday oo militariga aysan u aabayeelinin waayeelka, hooyada iyo sidoo kale carruurtaba. Muuqaalo naxdin iyo tiiraanyo leh oo ina soo gaaray waxay muujinayaan hooyo ilmo yar wadato oo xabad ku dhacday oo sii nafbaxaysa, waayeel garbaha la wado oo xabad ku dhacday, nin dhalinyaro ah oo markaasi la wado, iyo gabdho markaasi dhalinyaro ah oo iyagu xabadda markaasi meelaha halisa ay ka haleeshay, oo shacabka mudaharaadaya ay markaasi garbaha wadaan. Dhammaan muuqaaladaasi naxdinta leh waxa ay naga soo gaareen magaalada Boorama, waana xaalad argagax leh in shacab intaasi la eg in loo geysto xasuuqaasna ay ku mutaystaan keliya in ay isu soo baxaan oo aragtidooda ay cabiraan. Siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeedo gobolada Awdal iyo Salal, gaar ahaan beesha Gudabiirsi, ayaa waxa ay markaasi ku eedeeyeen xukuumadda madaxweyne Ciro in ay ka wado magaalada Boorama xasuuqii ugu ba'naa, isla markaana loo baahan yahay in xukuumaddu ay si degdeg ah ciidanka halkaasi uga saarto, wixii markaasi dambana la isaga yimaado. Waxa ayna sheegeen in haddii arrinta ay markaasi halkaas ay sii dhaafto oo ciidamada halkaas ay sii joogaan, xasuuqana ay sii wadaan, in ay iska dhicin doonaan, qof walbana uu gurigiisa qoriga kala soo bixi doono. Inkastoo haatan xaaladdu ay fara ka baxday oo shacabka reer Awdal xasuuqii ugu weynaa loo geystay, haddana weli wax haba yaraatee dabacsanaana dhanka xukuumadda kama imaan. Ciidamadii militariga ahaana weli waa dul joogaan. Xildhibaan Maxamed Abiib oo goor sii horreysay ka hadlay, oo isagu ka soo jeedo gobolka Awdal, gaar ahaan beesha Gudabiirsi, waxa uu sheegay in sababta halkaasi loo geeyay ciidamada militariga ah in ay tahay in xasuuq ay halkaasi ka geystaan. Waxa uuna xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro uu ku eedeeyay in ciidamada halkaasi la geeyay aysan ahayn ciidamo sax ah oo militari ah, balse ay yihiin ciidamo dhowaan la qarameeyay oo xitaa tababar aan soo marin, kuwaas oo loogu talagalay in lagu xasuuqo shacabka ku sugan magaalada Boorama iyo guud ahaan gobolka Awdal. Xildhibaanka ayaa saacado kooban u qabtay xukuumadda in ay ciidanka halkaasi kaga saarto, hadday ka saari weydana waxa uu ku hanjabay in ay sameyn doonaan siduu rag yeeli jiray. Hadalkaas oo u muuqda hanjabaad ah in markaasi ay isdifaaci doonaan oo qori caaradiis ay isku difaaci doonaan shacabka reer Awdal. Haddaba haddaad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto
oo muuqaalkan like gareyso sidoo kalena aad sii share gareyso. Aragtidaadana waa noo muhiim qaybta hoose ee faallada aad noogu reebto. Mahadsanidin.